Bismillah, videogan waxa weeye waa videogii afraad qaybtiisii saddexaad. Fiidiyoyadii hore waxaan idiin soo sheegay qaybta afraad ama videoga afraad inuu ka koobnaan doono laba qaybood, laakiin waxaan ku darnay qayb saddexaad. qaybtan saddexaad waxaan rabnaa inaan ku sharaxo qaabka ardayda loo delete gareeyo. Fiidiyoyadii hore baan rabnay inaan ku darno, marka waan ilownay. marka baarta saddexaad baan sameynay, qaybta afraad baan waxaan ka sameynay baarta saddexaad. marka haddii aad u baahan tahay arday inaad delete gareysid, waxaad tegaysaa student information, waxaad kasii tegaysaa meeshaan ay ku qoran tahay balki delete. balki delete markaad tagtid waa qayb aad u fudud, wuxuu kuu soo saarayaa ardaydii aad rabtay inaad delete gareysid. haddii aad rabtid glass inaad u raadisid waad dooranaysaa. haddii aadan rabin glass inaad u dooratidna waxa way search waa dhahaysaa, adana waxba dooran arday kugu jiray systemka dhan buu kuu soo taxayaa. hadday 1000 arday yihiin, hadday 2000 arday yihiin wuu kuu soo taxayaa. marka haddaad rabtid all inaad delete gareysid, all baa taabanaysaa, delete baa dhahaysaa, saas kugu delete maya. marka inagu ma rabno inaan ardayda dhan delete gareyno. class ka mid aan rabnaa inaan arday ka delete gareyno, form 2 oo kale, form 2A baan rabnaa inaan arday ka delete gareyno. simple form 2A markaan doorano search waan dhahaynaa. marka ardaydii form 2A buu inoo soo saaray. marka tusaale ahaan ardaygan oo kale 2 jeer soo celisay, Cumar iyo Cumar waa hal arday oo kale. kan koraad rabtaa inaad delete gareysid, click baa siinaysaa, kadib waxaad dhahaysaa delete. wuxuu ku leeyahay ma hubta, waxaan leeyahay haa waan hubaa, delete garee. marka ardaygaas saas ayuu ku tegayaa. saa ujeed 2 Cumar inooguma jiraan, systemka saas uga baxay. marka videogan guud ahaan intaasuu inoo noqonayaa. waa mahadsantihiin.